السلام عليكم bahda daruur iyo deero news salaan sare ayaan idinku salaamay kadib laba su'aalood baan qabay kow gabadha xaaskaygu inta badan xilliyada ay ii baahan tahay iima sheegato marka ma jirta calaamad gaar ah oo aan ku garan karo xaaskayga inay aniga ii baahan tahay xilliga gogosha su'aasha labaad gabadhu inay kacsi badan leedahay iyo in kale calaamad lagu garan karo ma jirtaa mahadsanidin dhammaantiinba waxaan rajaynayaa in aad si wanaagsan iigu soo jawaabi doontaan mahadsanidin asxaabteeda igu qaaliga ah adiga ayaa mudan su'aasha koowaad xaaska haddii xishood badan tahay waa laga yaabaa ninkeeda inaysan weydiisanin galmo laakiin astaamo ayaa jira oo lagu garto xaaska inay rabto raaxada sariirta astaamahaas way kala duwan yihiin naagba si ayay u muujisaa dumarka qaar way isqurxiyaan casho macaan ayay ninka u keenaan sariirta ayay ku goglaan maro cusub ama marada ayay ka bedelaan kaftan ayay la galaan ninka sheeko ayay u bilaabaan sheeko waxaa jirta nin ii sheegay waa hore dumarka Soomaaliyeed dhaqan ayay lahaan jireen ninka lagama yaabo inay u sheegtaan baahida ay u qabaan galmada naagta sariirta hoosteeda ayay ka raadinaysaa kabo ku dhacay sariirta gadaasheeda waxaa laga yaabaaba inay iyada ku riday ama alaab kale ninka agtiisa ayay foorarsanaysaa nimanka markaas waxay u arki jireen baaq inay tahay arrintaas haweeneyda inay u baahan tahay gogosha marka adiga ayaa laga rabaa inaad fahanto xaaskaaga qaabka ay u adeegsato dareenka ay kugu soo jiidayso su'aasha labaad kutubta ka hadashay astaamaha lagu garto gabadha kacsiga badan waa kutub qadiin ah waxay sheegeen astaamo ku saabsan jirka waxaa ka mid ah bishimo waaweyn kub weyn naaso adag oo sal ballaaran leh xad badan jirka oo ay ku leedahay gacmaha iyo lugaha iyo shiirka badan iyo qoyaanka badan kuwaas waa astaamaha jirka waxaa jira astaamo kale oo dabeecadda la xiriira naagta xanaaqa badan gabadha qosolka badan iyagana waxaa lagu tiriyaa dumarka leh dareenka badan inkastoo ay calaamadahaas dumarka qaar ay khilaafi karaan laakiin waa siday haweenka u badan yihiin mahadsanid waxaan rajaynayaa intaas inay kugu filan tahay waxaana su'aashan na soo weydiiyay Xuseen waana soo weydiin kartaan su'aal walba oo aad isdhihi kartiin baahi ayaad u qabtaan xishoodka waxyaalaha qaar aad rabtid in laga aqabtiro ha ka xishoon walaal mahadsanid